raganimadu ma aha labiska, ma aha quruxda, ma aha hantida iyo dhaqaalaha, ma aha afmishaarnimada iyo codkarnimada iyo public speaker ka hadli ogaanta ma aha, ma aha propagandada iyo beenta. haddaba raganimo waa maxay? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamij yar kooban. daawadayaasha sharafta badan ee ku xidhan baraha aanu bulshada ku leenahay, waxaan ugu talagalay clip yar oo kooban khaasatan ku socda ragga inaan halkan dan kula wadaago. markaynu leenahay rag, haddaynu dabcano inaynu ereygaa rag fasirno, raganimadu ma aha labiska, ma aha quruxda, ma aha hantida iyo dhaqaalaha, ma aha afmishaarnimada iyo codkarnimada iyo public speaker ka hadli ogaanta ma aha, ma aha propagandada iyo beenta. haddaba raganimo waa maxay? waa midda aan rabo inaan dhowr kelmadood ka idhaahdo sifaadka iyo tilmaamaha lagu tilmaamo ninka ragga ah iyo raganimadu waxa ay yihiin. markaad fiirisid ereyga ar-rujula afka carabiga lagu yiraahdo ama raganimada marka la leeyahay, Soomaaliduna ay tiraahdo ninkaasi waa nin rag ah. rag ah marka la leeyahay, ninnimadii already waa la sheegay. rag ah waxa laga wadaa waa nin waxna gala waxna guda. haddaba raganimadu waxay leedahay tilmaamo. qofkii tilmaamahaas laga waayo waxa laga yaabaa inaynu oran karayno raganimadiisa waxa kuma jiraan, ama aynu dhihi karno raganimadaasi waa dhaawac. ogaada, nin kasta oo muuq leh, magac leh, si ragga u labista, maryaha xidha, gariga gafuur leh, raganimo kuma sifaysna, laakiin waa nin. wuxuu ninku yahay, Soomaalidu waxay oran jireen magac iyo magta ayaa ragga wadaaga, laakiin mansabka iyo tilmaamahan kale magaca way ka dhaxayn karaan, laakiin sifaadkan kale aan soo wadno ragga kama dhaxay. haddaba markaynu dabcano inaynu qeexno rujula waxay tahay ama raganimo waxay tahay, waxay ka bilaabantaa ninku inuu garanayo xaqa isaga lagu leeyahay iyo ka oo asagu munaasabada asaga la gudboon ee uu dadka ku leeyahay ama bulshada uu ku dhex nool yahay. markaan dhan kale u dhigno ama dhinac kale ka eegno, ninku waa inuu garan karo waxa la gudboon bulshada uu la nool yahay, qoys iyo qaraabo, ehel, cid kasta waxay ka mudan yihiin waa inuu isagu garan karo. asagana waa inuu garanayo waxa asaga xaggiisa jira oo ay ugu horeyso xiriirka isaga iyo Ilaahay ka dhaxeeya, kadibna mucaamalada dadka khaliq naas bi khuluqin hasan tii rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam. uu qofkaasi dabeecadda wanaagsan, hab dhaqanka isaga iyo Ilaahay u dhaxeeya oo hagaajiyo, kadibna dadka u hagaajiyo. aan isla fiirino 8 calaamadood ama 7 calaamo, ugu yaraan 7 calaamadood oo lagu qeexo ninka ragga ah waxa uu yahay. ninka ragga waxa laga rabaa inuu yahay nin kalsooni nafeed leh. rujulada marka la qeexayo, ninka ragga la qeexayo waa inuu leeyahay kalsooni nafeed, athiqatu nafsiya. waxaan leeyahay kalsooni nafsiya waa inuu leeyahay, naftiisa ku kalsoon yahay, oo ku kalsoon yahay waayaha iyo waaqica iyo waqtiga uu joogo, uu kalsooni ku qabo, kartidiisa uu ku qabo, kartidiisa uu ku kalsoon yahay, isagu isku kalsoon yahay. waa ta la yiraahdo ninka ragga ah waa ka geesiga ah, geesiguna waa ka cagaha dhulka ku haya inta yar. waa ta la yiraahdo marka dhan kale laga eego, Soomaalida ay tiraahdo ar-rujula ar-shujaa'atu sabru sa'a. waxyaabaha lagu garto ee kalsoonida nafta waxa kamid ah geesinimadaas aan ka hadlayno. geesinimada la sheegayaa ma aha qofka goobta dagaalka kaliya aan cararin. geesinimadu waxa kamid ah wax qurka. bakhaylku geesi ma aha, waayo wuxuu isleeyahay hadaad wax bixiso oo wax ku dhaafaan armad caydhowdaayo berito waxaad cunto baad weydaa. marka bakhaylku ma aha geesi. ثقة nafsiga qofku markuu leeyahay wuxuu leeyahay sifo wanaagsan oo sifaadka ragga lagu garto kamid ah. waa inuu leeyahay awood shakhsiyadeed, karti. meesha naf Soomaaliya kana qofku inuu karti leeyahay, dadnimada iyo qiimaha iyo qiyamka ragga waxa kobciyo oo koriyo waxa weeye awoodda shakhsiga ah. qofku inuu leeyahay karti, inuu leeyahay meel ku qayb, inuu yahay meesha oo ku qayb qofkaas la dhahayo hawsha hebel baa ku maqan isku dhamaatay. waa in qofkaas uu kartidaas leeyahay. waxa kamid ah ixtiraamka. ninka ragga ah wuxuu leeyahay ixtiraam, naxariis, kuwa yaryar oo u naxariisto, kuwa weyna oo karaameeyo. waa sifadii rasuulkeena inuu faray sallallahu alayhi wasallam alayhi inaad qofka weyna ixtiraamtid, qofka yarna aad u tidid. man lam yarham saghirana wa yugharir kabirana falaysa minna. qofka weyn wuxuu mudan yahay ixtiraam, qofka yarna wuxuu mudan yahay turaale aad u tidid, oo ilmaha yar inaad u tidid, caawisid, dariiq hadaad maraysid,
hadduu goob kale aad ku aragtid caruurtu sometimes inta badan caruurtu waa nugulka waxa laga yaabaa ilmo yaro dariiqa intaad ku soo martay wax culus wada adeeg culus oo qaadi kar laaya guriga uu kula socdo marba say dhigdhiganayaan inaad wadada ku soo gaadhay jaranjarada guriga aad digantay inaad ku soo gaadhaa laga yaabaa ilmaha yar marba meel oo laabti sii dhiganay aaday kuugu fududahay inaad tartiib intaad gacanta ku qaado u sii laalaadis guriga hor dhigtay waxaa la mid ah hooyooyinka iyo dumarka iyo dadka iska jilicsan ajar weyn waa laga helaa waa tir rasuulkeena sheegay sallallahu alayhi wasallam alayhi dariiqa oo aad qodaxda ka leexisid ba ugu yar ajar weyn baa laga qoraa iska daa qof bani aadan aad caawisay taasina waxa kamid ah rujuulada raganimada waxa kamid ah ixtiraamka iyo lodfiga turaalaha qof inuu turaale leeyahay qofku inuu qof jilicsan yahay oo dadka u jilicsan yahay oo cidii jilicsan ee tamar daran ee baahan ee bugta u nugul yahay waa raganimada ay kamid waxa kale oo laga mid ah raganimada kamid ah qofku ninka ragga ah inuu go'aamadiisa shakhsiga fulin karayo raganimada ay kamid tahay ninka hadduu go'aamadiisa shakhsiga fulin karin raganimadiisa dhaawac baa ku yahay nin raga ma ah nin aan go'aankiisa fulin karin ama go'aankiisa marka hore aan qaadan karin ninka hadduu go'aankiisa qaadan karin isaga talada kuma jiro oo la yamliku quutahu la yamliku qaraarahu ma la yamliku quutahu la yamliku qaraarahu qaacida waxa jirta carabtu ay tiraahdo ma la yamliku quutahu la yamliku qaraarahu qofka aan go'aankiisa qaadan karin ee aan irsaaqdiisa iyo noloshiisa qofka aan noloshiisa ku filaynin go'aankiisana kuma filaynaada waxay ka wadaan cidii biilkaaga bixisa ee noloshaada back up u ah ee noloshaada dabarta baa go'aankaaga iska leh dhanka la hadii loo dhigana qofka hadduu go'aankiisa ku filayn oo go'aankiisa qaadan karin mana fulin karo hadduu laakiin qaadan karo go'aanka laakiin uusan fulin karin waa taata raganimada dhaawacaysa ay qawaacidkan xikmadahan ay tilmaamayaan waxa kamid ah qofku inuu mas'uuliyadiisa ka soo bixi karo iltizaam waxa leeyahay waa inuu qofku isku laazimiyo isku waajibiyo inuu mas'uuliyadiisa gudan karayo ninka ragga ah waa ninka mas'uuliyadiisa gudan karaya waa ninka xilka saaran garan karaya waa ninka mansabada uu joogo iyo maqaamka uu joogo iyo waxan dunida loo keenay iyo waxa la gudboonayo bay'ada iyo dadka iyo cidda uu ku dhex nool yahay waa inuu mas'uuliyadda ka saaran gudan karayo taasina waxay kamid tahay waxyaabaha lagu garto ninka ragga waxa kale oo kamid ah saameyn inuu qofku ku yeesho dadka ka dambeeya jiilka uu joogo qarniga ka dambeeya ninka ragga ah waa ka saameynta ku yeesha ma aha ninka ragga ah maalinta xawaasha la dhigo ka magaciisu la baabo raganimo ma taasi sababtoo ah ninka ragga ah waa in magac ka hadhaa waa in mansab ka hadhaa waa in wax lagu majeertaa ka hadhaa waa in la yiraahdo ninka hebel ahaa haduu halka ka baxay halkiisa yaa buuxinay waa in la yiraahdo laakiin waa inuusan markii horeba ahayn mid weyla waraabiya ah irmaaneeya Soomaalida u taqaan caruurta careerkiisa jeeskiisa ka ku filaa oo caruurtiisa iyo xaaskiisa bas tabaan uusan noqonin ninka ragga ah waa ninka deegaankiisa iyo dadka ku dhex nool yahay iyo bay'adiisa iyo qaaradda uu ku dhex nool yahay laga tabow dudadaas uu ku dhex nool yahay qofka laga tabo baa raganimadiisu kaamil tahay baa la oran karaa markaan saas leenahay waa inuusan nin qoys ahayn waa inuusan nin ahayn qabiil waa inuu yahay nin qaran qofku waa inaad himiladaadu aad gaari kartid in aad bay'ada iyo deegaanka iyo dadka aad ku dhex nooshahay aad wax ka bedeli karaysid sababtoo ah maxay ku dheer yihiin dadka saameynta yeeshay bay'adana wax ka bedelay dadka horseeday waxyaabo badan oo aynu garanayno oo wanaagsan Soomaalida hore markaynu u fiirino oo ilaa maanta aynu hibanayno ninkii hebel ahaa rageed buu ahaa kanuu ka tagay daasaynu hayna sagaalkaad ku dhaltay ku dhashay dunida wuxuu ku soo kordhiyay magac buu ka tagay mansab buu ka tagay wana wax lagu duceysto inaan magacaaga iyo muuqaaga isku martigin haddii magacaaga iyo muuqaaga isku martagaan oo maalinta xabaasha lagu dhigo kuugu dambayso wax dambe oo hibasho ah aad yeelan weydid ilaa haddaad ugu fiican tahay caruur kugu abtirsato magacaaga halkaas marta kaliya ay joogto waxba maadan soo kordhin raganimadaada waa dhaawac waxa ilaahay ku siiyay ability iyo awood iyo karti inta ka badan oo aad ka faa'iideysan karaysid saameyn baad yeelan karaysaa bulshadaada wax ku soo kordhin karaysaa deegaankaada wax ku soo kordhin karaysaa dadkaaga dalkaaga iyo diintaadaba waxbaad ku soo kordhin karaysaa waxaad ku soo kordhin karaysaa diinta waxba laguma soo kordhiyo waxaan ka wadaa saameyn baad ku yeelan kartaa kobcinta diinta ta dhaqanka iyo waliba dadka iyo dalka aad ku dhex nooshahay baahiyahooda markaa taagan oo aad astaan fiican iyo kaalin fiican ka qaadatid way dunida la keenay waxa kaliya ee ka hadha waa magac dunida magac baa ka hadha xoolo ma hadhaan mansab iyo sharaf iyo kursi aad ku fadhiisatay bari baad ka kici laakiin magacu wuu jiri doonaa markasta wuu jiray rajulada marka waxa kamid ah saameynta inuu qofku cidda ka dambaysa iyo jiilka ka dambaysa saameyn ku yeeshaa waxay kamid tahay raganimada calaamadaha lagu garto kartida raganimada ay kamid tahay waxay kamid tahay waxyaabaha ninka ragga ah kaalinta raganimo muujin karay
Soomaalidu aad uga mahmaahi jirtay ragga magaca guud iyo ragga magaca iyo muuqa iyo magto ka sameeyay bay yiraahdeen laakiin kama sinna raganimada kama sinna laakiin wuxuu ka sameeyay ninnimada waa laga sameeyay laakiin raganimada lagama sinna markaas aas leeyahay waa kilib yaro kooban aan ugu talagalay raganimada qiyamka iyo qiimaha ay leedahay inaynu ku garano ku baraarugno raguna uusan ahaanin oo kali ah dharka uu xidhan yahay labisku qabo quruxda garka lala baxo dhaqaalaha kaliya uusan ahayn raganimadu ay tahay qiimaha iyo qiyamka aad bulshadaada iyo dadkaaga ku dhex noolahay intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono fi amaan illah